السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا نجنال كمركز السود وواضح أدي هذا وما هتسنتهين مقال كان وحربا إن ندي كل وذاقه نينكي عدان كها بشي أكتوبر سنة كي لبضة كون يسدح يا لباتنك من ديدا كودلي ويل دلنيراه لحجره أو فلسطينية ميل أن كفوجين مقالة شيكاغو قبل كإلينوي سلامر كان الدنب اللي جوه لي بشي لبعض سنة كان بشي شنادنا الحكومي أي حبسي كدح جيريودي arrimahaasi ayaan rabaa inaan idinla wadaago iyo sidoo kale madaxweyne Donald Trump oo u hanjabaya in dacwad lagu soo oogayo fanaanada caanka ah ee Beyoncé iyo sidoo kalena haweeneyda iyaduna talk show iskala hanjirtay la yiraahdo Oprah Winfrey sabab la xiriira taageeradii ay taageereen Kamala Harris oo uu kula tartamayay madaxtinimada Trump sanadkii hore dhamaadkiisii maxay tahay waxyaabaha la uu ku eedeynayo in ay labadaasi qofood ee caanka ah ee Kamala Harris ay ka qaateen oo ay ku mutaysanayaan in dacwad lagu soo oogo oo la maxkamadeeyo arintaasina waa idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada dibta markii uu bilowday dagaalkii u dhaxeeyay Hamas iyo Israa'iil October 7 sanadkii 2023 in dad badan ay arintaasi ka careysiisay marka waxa jiray nin cadaan ah oo ku noolaa Plainfield oo 40 mayl u jirtay ilaa 64 kiiloomitir magaalada Chicago ee gobolka Illinois ninkan Joseph Suba ayaa la dhihi jiray waa 73 jir ayuu ahaa waxa uu guri ka kireeyay haweeney Falastiiniyad ah oo wiil yar oo 6 jir ah wadatay oo single mother ah sidaas darteed markii dagaalku bilowday waxa uu dhageysan jiray idaacadahan dhinaca midigta ah marka waxa uu aad u taageersanaa Israa'iil sidaas darteed maadaama ay dadkan muslimiin ahaayeen Falastiiniyiin ay ahaayeen arintaasi ayaa ka careysiisay guriga iiga guura ayuu yiri marka iyagina waxay yiraahdeen degdegan kuma guuri karno waa inaan guri kala raadsanaa maalintii dambe isagoo midi wata ayuu u soo galay oo dhahaya muslimiinta waa nacbahay waxa uu midida ku bilaabay hooyada dhashay wiilka 6 jirka ah oo magaceeda la yiraahdo Hanaan Shaahin markii ay iska celisay kadib wiilkii yarka ayuu arkay wiilkii ayuu ku jeestay 26 midi ayuu ku dhuftay hooyadiina iyadoo dhaawaca ayaa wiilkii waliba mididii iyadoo ay ka taagan tahay uu banaanka iska fariisto xabad sigaar iska shitay marka gabadhii dhaawaca ahayd oo wiilka dhashay ayaa booliska wacday 911 ka markay wacaysay markasta waa la duubaa sidaad ogtahay markii boolisku imaadeen waa ay yaabeen waxyaabaha ay meeshii ku arkeen markii dacwadu ay socotay kaameradii ayay soo bandhigeen ay duubeen booliska kaamera ayaa u xiran markasta oo ay ka jawaabayaan 911 marka muuqaaladii ay duubtay sawiradii iyo 911 ayaa maxkamadda lagu soo bandhigay oo gabadhu markii ay booliska wacaysay wiilka dhashay marka xeerbeegtidii wax badanba ma aysan ku qaadan ninkaasi in dambi lagu helo hal saac iyo bar kadib waxay sheegeen in ninkan dambiyadii lagu soo eeyo dil isku day dil iyo waliba nacaybkii in lagu helay marka ninkan xilliga dambiga lagu helayo waxa ay ahayd 28 bishii 2 ee February ayaa dambiyadaasi lagu helay labadii bishii shanaad ee Mayna waa la xukumay hadda Khamiistii ayuu xabsiga ku geeriyooday wax ka yar 3 bilood markii uu xabsiga ku jiray sida ay sheegeen saraakiisha dhinaca xabsiyada ee gobolka Illinois isla markaana sheriffka degmada Will County ay xaqiijiyeen ninkan Khamiistii ayuu geeriyooday sababaha uu geeriyooday ilaa hadda lama xaqiijin ma xanuuna ilaa hadda lama sheegin sababaha uu geeriyooday laakiin waxa la xaqiijiyay in uu xabsiga uu ku geeriyooday ninka la yiraahdo Ahmed Rehab oo hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta ee CARE ayaa waxa uu sheegay in dambiilihii uu geeriyooday laakiin nacaybkii wali waa nool yahay yiri maadaama dad fara badan arintaasi ay si aad ah ay uga caroodeen marka ninkan waxa uu u dilay wiilkaasi yar hooyadiina uu u weeraray in ay muslim ahaayeen oo kaliya marka diintooda ayuu ku bartilmaameedsaday sidaas darteed hadda ninkaas waxa ay boolisku sheegayaan in uu geeriyooday isla markaana markii la xukumayo marka labadii bishii May garsooraha xukuntay waxa la yiraahdaa Amy Bertani Tomzak waxa ay ku heshay in wiilkii yarka ahaa uu dilay waxa lagu xukumay 30 sano waxa sidoo kale 20 sano lagu xukumay isku day dil oo hooyada wiilka dhashay uu isku dayay inuu dilo 3 sanana waxa loogu xukumay nacaybkii oo dadkan maadaama muslimiin ahaayeen oo ku bartilmaamay marka 53 sano oo xabsi ah ayaa ninkan uu ku xukunaa 3 bilood wax ka yar ayuuna xabsiga ku jiray markii uu Khamiistii uu xabsiga uu ku dhex geeriyooday ninkaas xilliga wiilkaasi yar uu dilayay
waxay ahayd 14 bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 7 maalmood kadib markii weerarka Xamaas ay ku qaaday Israa'iil oo 7 Oktoobar ahaa. marka waxa uu ka jawaabayay Israa'iil ayuu taageerayay sida muuqatay. marka sidaas darteed 7 maalmood kadib markii dagaalkaasi uu bilowday ayuuna wiilkaasi yar 26 midi uu la dhacay, waliba 6 jir isagoo ah, mididii oo ka taagan oo banaanka iska fariisto xabad sigaar iska shita. markii booliisku u imaanayeen ninkan maba ka qasnayn sigaar ayaa u shidnaa guriga banaankiisa, dhiigna waa uu lahaa. marka boolisku waxyaabihii ay meesha ku arkeen aad ayay arrintaasi ay ula yaabeen. sawirkan aad arkaysaan waa ninka hay'adda CARE madaxda ka ah iyo waliba aabaha wiilka dhalay iyo hooyadii iyo qaar ka mid ah dadkii muslimiinta ee maxkamadda ka soo qayb galay maalintii dambiga lagu helay oo 28 bishii 2 ee February ahayd. maxkamadda banaankeeda ayaa salaad shukri ah salaatii ku hor tukanaya maxkamadda horteeda. dhinaca kale madaxweyne Trump toddobaadkii hore waxa uu sheegay in uu argoosi bilaabayo. waxaan ognahay Trump intii ololaha doorashada uu ku jiray maxkamado fara badan ayaa ku furnaa, qaar ayaa dambi lagu helay, waliba 34 dambi ay kamid ahaayeen arrintii doorashooyinka inuu faragelin ku sameeyay sanadkii 2020. marka hadda waxa uu yiri markan maadaama aan madaxweyne ahay waa markayga. Obama waa kii yiri doorashadii 2016 ayuu farageliyay, khiyaano qaran ayuu sameeyay. sidaas darteed hadda wasaaradda cadaaladdu waa tii u saartay arrintaasi guddi soo baara u saartay. marka waxa uu bartiisa Truth Social uu ku soo qoray hadda in la maxkamadeeyo ay mudan yihiin fanaanada caanka ah Beyoncé iyo sidoo kalena Oprah Winfrey oo iyaduna talk show caan ah qaban jirtay, laakiin hadda muddooyinka dambe arrintaas shaqadaasi ka fariisatay. marka waxa uu bartiisa Truth Social oo Trump ku soo qoray doorashooyinkii madaxtinimada waxaa muuqata oo dimuqraadiyiintu ay qirteen in lacaga fara badan oo sharci darro ah oo ilaa iyo 11 milyan gaaraysa in la siiyey fanaanada Beyoncé si ay u taageerto Kamala Harris. marka waxa uu yiri xitaa ma aysan heesin oo hal hees ma aysan u qaadin stagekana. markii waxa jirtay in bishii October magaalada Houston ee gobolka Texas soo bax siyaasadeed ay ku qabanaysay Kamala Harris ee Beyoncé kala soo qayb gashay. hadal kooban halkaasi ay ka jeedisay oo ay taageertay oo ay tiri Kamala Harris ha loo codeeyo. marka waxa uu yiri taageerayaashu xitaa goobta joogay iyagoo ku orinaya ayaa stageka ay iska degtay ayuu yiri. marka sidaa darteed $3 milyan waxaa lagu bixiyay ayuu yiri in Oprah Winfrey ay ka hadasho shirkii xisbiga dimuqraadiga oo isaguna August ka dhacay magaalada Chicago ee gobolka Illinois. marka expense hotelkii iyo diyaaradii waxyaabahaas laga bixiyay. waxa uu leeyahay Oprah Winfreyna waxaa sidoo kale ku baxday $3 milyan in ay timaado shirkaasi oo ay ka hadasho sida uu hadda uu hadalka ula jeedo. marka waxa uu yiri $600,000 waxaa la siiyay ayuu yiri nin TV ka hadla oo isagu xitaa showgiisa aan aad loo daawan. ninkan Al Sharpton ayaa la yiraahdaa, MSNBC ayaa sidoo kale isaguna uu barnaamij ku leeyahay oo ka hadla. marka waxa uu leeyahay Beyoncé waxaa la siiyay lacagtaasi $11 milyan sidoo kalena $3 milyan Oprah Winfrey ayaa lagu bixiyay. ninkana $600,000 ayaa lagu bixiyay. marka Trump waxa uu leeyahay sidoo kale waxaa jirta dad kale oo iyaguna lacaga lagu bixiyay si ay Kamala Harris ay u taageeraan, lacaga lagu siiyay, laakiin arrintaasi waxba ma aysan tarin. waxana uu yiri waana arrin qalad ah marka qaabka ay u soo sheegeen ama ay ugu soo qoreen waraqaha. marka xisbi kasta waxaa loo baahan yahay lacagaha meesha uu ku bixiyo ololaha doorashada inuu soo qoro. marka si qaldan ayay u soo qoreen ayuu leeyahay. marka wuxuu yiri looma baahno inaad lacag ku bixiso si lagu taageero, waa sharci darro in sidaasi la sameeyo ayuu leeyahay. ma qiyaasi kartaa ayuu yiri haddii siyaasiyiintu ay lacag ku bixin lahaayeen si dhammaantoodba loo taageero. arrintaasi waxa uu yiri waa arrinta ay Kamala Harris ay sameysay. dhammaanba lacagahaasina dadkaasi waxaa lagu siiyey si ay iyada ay u taageeraan. sharciga ayay jabiyeen, waana in dacwad lagu soo oogaa ayuu leeyahay. marka Trump sida muuqata waxa uu leeyahay Kamala Harris dad ayay lacag ku siisay si ay u taageeraan oo hadda uu ka magacaabayo 3 qof oo ah Beyoncé, Oprah Winfrey iyo sidoo kalena ninkan Al Sharpton la yiraahdo. marka wax dad kalena waa ay jiraan ayuu leeyahay. marka wuxuu yiri haddii qof kasta uu lacag intuu bixiyo hal ay taageero uu leeyahay arrintaasi waa sharci darro. sharciga Mareykanka iyo midka ololaha doorashada iyo dastuurkaba kuma jirto. marka wuxuu leeyahay dadkaasi waa in dacwad lagu soo oogaa isla markaana la maxkamadeeyo. waan arki doonaa arrimahaasi Trump argosiga uu bilaabay iyo halka ay la gaartay, laakiin ilaa hadda waxa muuqata
Obama, Beyonce, Oprah iyo Al Sharpton dhammaantoodba waa dad madow ah, hal qof oo cadaan ah kuma jiro. Marka madowga uu kaliya bartilmaameedsanaya mase dad cadaanana waa ay jiri doonaan. Xitaa Kamala Harris iyadana maadaama South Asia hooyadeed ay kasoo jeeda aabaheedna uu Jamaica yahay sanfila, iyada nafteeda dhinaca madowga ayaa lagu tirinaya. Marka waan arki doonaa arrimahaasna waxyaabaha kasoo kordha. Aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. Intaan mar kale kulmi doona saaxiibkiina Cilmi Waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.